بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وديال دلكين با meel kasto aad joogtaan halkani waa Kalsan TV xaruntiisa magaalada Nairobi waa maalinimo talaada ah taariikhda ay ku beegan tahay 27 bisha labaad ee sanada 2024 ku soo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir ugu qayb galaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo maanta mar kale u fariisatay dhageysiga dacwad musuqmaasuq oo loo haysto mas'uuliyiin ka tirsan dawladda askari qof shacab ah ku dilay degmada Guruceel oo ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen ganacsatada xoolaha nool ee magaalada Jigjiga oo la dhibaataysan dhac ay ciidamadu ku hayaan xoolahooda akhbaaraadka caalamka Daawud wararkan idinheena waxa kamid ah Israel oo sheegtay in ay joojinayaan duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan marinka Gaza inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan intaas Daawud waxay ahayeen qodobada warkan ugu dorkroon goordhow warka oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan asaahate ku soo dhawaada qadar adeega bulsho